Bismillahirrahmanirrahiim. Kulanti wacan wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran kanaalka Bara Aqoon meel kasta joogtaan dunida iyo dacaladeeda. Waxaa idin leenahay waqti wanaagsan. Ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu daba socdaa muuqaalkii ka horreeyay ee Part 1 ahaa. Muuqaalkanna waa Part 2 iyo siraha ku jira WhatsApp-ka. Maanta siraha ku jira WhatsApp-ka waxaan ka baran doonaa 3 sir ama 3 waxyaabood oo muhiim ku noqon doona hadduu Alle idmo. ugu horreyn sirta koowaad ee ku jirta WhatsApp-ka waxay noqonaysaa WhatsApp-kaaga markii aad soo furatid sidan ayuu kugu soo baxayaa markii aad rabtid inaad qof wada hadashaan ama aad qof la hadlaysid haddii aad rabtid inaad iska bedeshid background-ka dambe ee cadaanka ah qoraalka ma ahan ee background-ka dambe ka dambeeya sawir waad saaran kartaa color-na waad saaran kartaa haddaba sidee loo bedelaa ugu horreyn waxaad tagaysaa 3 dhibcood ee isdul saaran ee geeska kadibna waxaad ka sii dooranaysaa setting-ka markii aad dooratid waxaad ka sii dooranaysaa chatting markii aad dooratid waxaad ku dhufanaysaa wallpaper-ka marka wixii meeshan no wallpaper ay ku qoran tahay waxaa laga bedelaa wixii aad saaratay tusaale ahaan oo kaleeto haddii aan rabo inaan gallery-ga aan sawir aan ka soo baxsado aan saarto tusaale ahaan cali dhaanto kaleeto soo qabo sawirka cali dhaanto kale set haddaan iraahdo oo halkan taabto waa ii saaran yahay sawirka ay saaran halkan haddii aan idin tuso awal waxba iima saarneen oo way iga caddeed meel sagxad cad ayay ahayd laakiin hadda sawir ayaan saaray haddii aad rabtid inaad sawirkii marka aad ka bedeshid oo aad saartay oo aad ka qaadid halkan ayaad uga qaadaysaa no wallpaper ayaad leedahay waa ka daliidaysaa marka solidna waa kalaro kalaro aad saaranaysaa waa kalaro oo iska caadi ah ka rabtid ayaa ka dooranaysaa taasi waa midda koowaad sirta labaad ee aan ka baranayno WhatsApp-ka ee aan maanta casharkeena aan ugu talagalnay inaan idin kula wadaagno ayaa waxa ay noqon doontaa dadka inta badan waxay jecel yihiin indhaha inay ilaashadaanna waa wax waajib ah oo saaran waana muhiim haddaba iftiinka WhatsApp-ka ee habeenkii ama maalintiiba aniga leerkan ayaan iska gaabiyaa haddii aan san iraahdo waa aad ayuu iftiinku u badan yahay laakiin inta badan sidan ayaan ka dhigtaa marka isagoo leerka sidaas uu ku yahay waad ka bedelan kartaa kalarka oo madow ka dhigan kartaa indhahaaga si aysan wax u gaarin ama saameyn uusan ugu yeelan iftiinkaas sidee looga bedelaa WhatsApp-ka soo furanaysaa WhatsApp-ka markaad soo furatid kadib 3 dhibcood ayaad ku dhufanaysaa 3 dhibcood markaad ku dhufatid setting-ka ayaa ka sii dooranaysaa setting-ka markii aad dooratid chatting-ka markii aad imaadid meeshan ay ku qoran tahay theme light meeshan ugu koraysa ayaad ku dhufanaysaa hadda light ayay saaran oo meeshan tagta ii saaran waa iftiinka ama cadaanka meeshan ka hooseysa ee tag ay ku qoran tahayna waa kalarka madow marka kalarka madowga ah markii aad rabtid inaad habeenkii aad saaratid halkan ayaad dooranaysaa okay aad leedahay wuu ku saaran yahay oo hadda waad arkaysaa si qurux badan ayuu kugu soo baxayaa WhatsApp-kaaga sirta saddexaad ee ku jirta WhatsApp-ka ayaan doonayn maanta inaan wax ku ogaano waxay noqonaysaa dadka inta badan waxay jecel yihiin inay fariimo badan oo badan ay u diraan dad kale iyagoo ama salaan ha ka ahaato ama si kaleeto xiriirina ka ahaato sidee doonaanba ha u noqoto laakiin dad badan haddii aad rabtid inaad fariin u dirtid oo aadna rabin ama aad ku caajisaysid ama aad ku daalaysid inaad hal qof aad ugu dirto oo qofkan markaa ka soo baxdo qofka kale aad u dirto waa waqti badan ayay ka qaadanaysaa haddaba maanta xirfadan ama sirtan waxay ka caawinaysaa in dad badan aad fariin hal mar aad wada gaarsiisid adiga oo maraya habkan ugu horreyn WhatsApp-ka ayaa soo furanaysaa WhatsApp-ka markii aad soo furatid sidan ayuu kugu soo baxayaa WhatsApp-ka waxaad dooranaysaa ama aad taabanaysaa 3 dhibcood ee geeska kaaga muuqda ee isdul saaran 3 dhibcood markii aad dooratid waxaad ka sii dooranaysaa new broadcast marka ku dhufatid inta qof aad rabtid fariintaada inay gaadho ama aad fariin hal mar aad u dirtid adigoo aadan hal qof aadan uga dooranayn dadka kale ee hal mar inay soo wada raacsiisid ciid wanaagsan oo kale ayaa rabtaa inaad u didid dadka kuugu jira
dhammaan waa wada diri kartaa adigoo habkan raacaya. Tusaale Axmed iyo Axmed Torres iyo A2 Media ayaan rabaa inaan iraahdo assalaamu calaykum inaan u diraan rabaa. Tusaalahaan oo kaleeto assalaamu calaykum waan qoray waan diray. labadooda fariintan way gaaraysaa. yacni habkan aniga ii soo baxay oo ii muuqdana waa hab yacni group ahaan ayuu u egyahay, laakiin fariinteedu waxay u gaaraysaa hal qof, yacni shakhsi waxa group ama qaab group u eegna ma u soo baxayo oo sidan oo kaleeto ma u soo muuqanayo. tusaale ahaan oo kaleeto sidan oo kaleeto yacni boss Cumar oo kaleeto markii sidan aan wada hadlayno yacni sidan oo kaleeto ayuu soo dhacay fariintii markii aan halkan aan uga diro oo qaabkaan soo dooranay aan uga diro fariinta. dad badan marka waa dooran kartaa. aniga 2 qof kaliya ayaan maaragtay ka doortay. haddii aad rabtid dadka inaad sii badisid waxaad taabanaysaa balaaskan kore. 2 qof ay ku dooran tahay, inta qof aad rabtid kale ayaa ku sii darsanaysaa. marka habkan waa habka maanta yacni aan rabno inaan casharkeena aan ku qaadano. muuqaalkana maanta intaas ayuu ku egyahay. waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like garee, asxaabtaadana u sii share garee. intaynu ku kulmi doonno muuqaalkiisa xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.